السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب شرفت اللي أكو حرن جنال كينا وهليها أمتا سودا واذا هدي أي تامركا يكوات أصوبو قنيسو جنال كينا فضلا سبسكرايب كتابو قنبليل كنا فروسياتو نقطة داوضا أغو هوريو لايك سار كنو سوقر فكر كايفي عن قيبتو هوس اي كومنتيا دا أني قانا سي اي دي رجلين ايو نقطو ما السني Valentine's Day maalinta jaceylka waxa maanta oo kale la xusaa 14 Febraayo oo loo yaqaan maalinta Valentine oo ay dadku u yaqaanaan maalinta jaceylka adduunka ama Valentine's Day dalalka reer galbeedka maanta oo kale waxa la isdhaafsadaa fariimaha jaceylka xambaarsan dadka isjecel ba isla xiriiraan ayagoo muujinayo in la joogo maalin ku weyn jaceylka ayna qasab tahay qof walba oo wax jecel in maalintaas laga dareemo waxay u arkaan inay tahay maalintii uu dhashay jaceylka ama uu xurmadiisii helay sidaa darteed ay واجب تاي إن لحصو أو حشمتنا لسيو هذا مقال كان جاون وحان وجوابي دونا سؤالها محيطة هاي فالنتاينز داي هلك وكسو بلاوضي حس كان أما وكو أكتر صدو يو دينة إسلام كوحا إيك قبطو هذا محيطة وجيد كدبتا إيكتن بيس مناسبتها يو حفلتها لقو ماموسو مالين تعانشق لماناها يو جعلك دونيدا مركا إيديقها وكسو دعان إيريقا فالنتاينز وحا مركي بدريميسا إن مقعاني معنو أهانو دقلما يو إنو كسو جيدو diinta Kiristaanka ama caadooyinkii hore ee Roomaanka hadaba aan isweydiinayo aha Valentine's maxaa loo dilay hadana loo xusaa ilaa iyo maanta oo lagu dhex arkaa magaciisa meel walba oo jecel lagu sheego qarnigii 13aad dhalashadii nabi Ciise kadib calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa jiray boqor la dhihi jiray Claudius oo ka talin jiray dalka Talyaaniga boqorkaas wuxuu amar ku siiyay dhalinyarada in aysan guursan karin kuwaas oo ahaa ciidan oo ku ilaashado awoodiisa maamul iyo sharafta boqortooyadiisa balse nasiib daro waxa amarkii boqor Claudius ka hor yimid oo xaq dar u arkay ninkan oo geeriisa loogu dabaaldego maalinta lamaana isjecel gaar ahaan dhalinyarta waa Valentine wuxuuna bilaabay inuu si qarsoodi ah u guursado dumar fara badan hadaba markii ay soo shaabaxday guurkii qarsoodiga ahaa ee Valentine wuxuu boqorkii amray in loo geeyo xabsiga lana daldalo Valentine sida ay sheegaan dadka taariikhda Valentine yaqaano waxa ku dhacay xilligii uu xabsiga ku jiray jacayl xad dhaaf ah oo uu jeclaaday gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badneed taasoo ahayd gabar uu dhalay ninka xabsiga ka talinayay gabadhaas oo soo booqatay waqtigii uu ku jiray xabsiga Valentine hadaba waraaq jacayl xambaarsan oo uu ku saxiixnaa Valentine kadib markii la daldalay ayaa laga helay qolkii uu ku xirnaa warqadaas oo ciwaan kaga dhigay ka socota Valentine-kaagii wixii maalintaas ka dambeeyay si loo xuso sanad guuradii ka soo wareegatay markii la daldalay Valentine oo ku beegneed 14 bisha Febraayo 271 sano dhimashadii nabi Ciise kadib ayaa la go'aansaday in la xuso maalintan oo kale oo la isdhaafsado ubaxyo salaamo iyo hadiyado qaali ah ilaa heer ay gaartay in ay noqoto maalin lagu cabiro lamaana jaceylka ay isku qabaan heerka uu la eg yahay oo hadii maalinkaas qof ay ka mid ah hilmaamo loo micneeyaa inuusan jecel haynin oo sheeganayay hadaba maxay diinteenu ka qabtaa xuska Valentine's Day waxaa la weydiiyay culimada iyo shuyuukhda islaamka su'aasha ah waa maxay xukunka dabaaldega maalinta jaceylka Valentine's Day iyo in la iibiyo waxyaabaha ciidaha la isticmaalo waxay ku jawaabeen sidaan kitaabka sunnada iyo culimada salafka inta waxay cadeeyeen in islaamku uu leeyahay laba ciid oo ah fidri iyo adha wixii ka soo haro ciidahaas waa bidco aanay u baahnayn muslimiinta inay ka qayb qaataan muujiyaan ama ay ku farxaanba qofkii talaabo xadka ilaahay naftiisa ayuu waxa intaas dheer tan inay tahay ciid ay gaalo samaystay taasna waa dambi loo geeyay dambi kale waxa ku jira gaalo isku ekaysiin iyo wali ka dhigasho ilaahna taasoo ka reeba mu'miniinta nabi Muhammad naxariisii nabadgelyo kurkiisa ahaatee isna uu cadeeyay wuxuuna yiri qofkii isu ekaysiya ummad iyaga ayuu ka mid yahay ciida jaceylkana waa nooca la sheegay waa ciisana macaabud iyo Christian qof muslim ah uma banaano inuu ka qayb qaato ama uu ku farxo ma banaana dabaaldega ciidan bidcada ah sharcigana wax asal ah kuma lahan waxayna soo galaysaa xadiiskii nabigeena naxariis nabadgelyo kurkiisa ahaatee ee ahaa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun qofkii ku daraarinkenan wax aan ku jirin waa celis xadiiskani waxaana wariyay Bukhari iyo Muslim hadaba dardaaran bal isweydii anagu waxaan mar walba weyneynaa nabigeena Muhammad naxariis nabadgelyo kurkiisa ahaatee oon xusnaa ee gaaladu mana raaceen oo mana la weyneeyaan nabigeena naxariisii nabadgelyo kurkiisa ahaatee waa maya hadii ay maya tahay anaga maxaan helay hadii aan islaam nahay oo maxaan gaalada iyo mushrikiinta ugu dabaaldegaynaa miyay ciidaheena nala ciidaan jawaabtu waa maya maxaa nagu qasbaya maalin
maalin ay gaaladu farxayaan inaan la faraxno miyaynan ogeyn in diinta islaamkana farayso inaan ka fogaano wax gaalada farxad gelinayo miyaynan xasuusnayn in nabigeena naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatay yidhi diintiina ayaa idin sugnaatay anigana diinteyda islaamka ayaa ii sugnaatay waxaa kale oo na saaran in qof walba oo muslim ah oo aanan aqoon u lahayn arrimahan oo kale sidaasna ku dhex galay dembigiisa aan u sheegno uguna digno khatarta ku sugan in loo dabaaldego sanam ay gaaladu caabudaan diinteena islaamka waxayna faraysaa inaan wanaaga isfarno xumahana aan iska reebno waana waxa aan uga duwannahay ummadaha kale loona baahan yahay in la dabaqo waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmi doonno barnaamij caynkan oo kale waxaa idinkaga tegayaa sida iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum